كسر دوادا هستاير أو تريي مرحوم عبد محمود أمين لحق يوزق الأوصاري الأستاذ أحمد هاج سعد. وفرير كسعته ومدة صومالية iyo dawladda walaalayaal haddana ku soo dhawaada ustaad cabdul waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysto maanta adigoo ila fadhiyo ama ramad baaxi daraya baaxa waxay ku socotaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa mudane maxamed abdullaahi farmaajo iyo mudane xasan cali feere أنا قوات لايو مجاعيك يمجع فنانين الصوماليين يمجع أستاذ عملاجي وعاو برنامج كلا فريو وحنجعلنا ما دام من الأرقام أو صومالي وصوت التين لو مجع عاوي هل كانوا جغلي ساعة وحكا عسلنا مضر مدع قوينة إن أنه مجع عاوي خديجة عبد الله حميد دلاس إلى مبهزين guriga hidaha iyo dhaqanka ee maama dalees sababtoo ah waa gabadhii ugu horeysay ay ka heestay raadiyo muqdisho 1952 oo muusigu tumaayeen laba ruux xuseen baajuule iyo aabihey labo dhinaca waqooyiga dalaadane waxaan jeclahay in loo magacaabo شمس أبو بكر وترك محلا إلا ما قالوا قرية هدا إنك إمام جدود عرب شمس أبو بكر إلا صبي وعلى ودي كبلو وقولي سبب طوع وهذا صوت عملاج سكول البلوزيو يكفي كل من عليك البلوزيو جرار كذي قالوا لي واضح إسبتال كفر ونوجي أبغى تقولي نوكله بدأني قالوا لي marka anaga fanaaniinta haddaan nahay meel kale nahaysana male mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare waxaa idinka codsanayaa mar allaala markaad maqashaan fariintan ama gruubkiina ay maqlaan ya ugu horeeyo amiin caamar oo qolkiisa soo dhigi doono waa inaan kala helnaa jawaab maqsuud calays gabagabadii ay joognay gabagabadii aan joogo hadalkii hadda dambe aad leedahay waxyaalaha ku daraa walaalahayna Somaliland yacni aad baan ugu faraxsanahay xaafad waxaa jirta oo maxamed mooge sayira صح runta aad baan ugu faraxay magacii maxamed mooge xaafadaas loo bixiyay waa ku mahadsan yihiin nin fanaan qiimada buu ahaa saaxiibkayga buu ahaa maxamed taariikh waxaa joogay وزارة التعليم هسه مركز حقق بجاسة إن حديد بدل وجوده أي صاحب ولا هذا فرح سنة حافظ محمد بوغلوبي تنهضنا محمد معلول شيء جذوذ عرونه سيدا ساموراليا إذا كعسرنا إذا نزمر مع الله إذا درسنا حمر ذلك سوي المعلوم خديجة عبد الله درس حميد إذا وإمر فنانين التاريخ ذا يعني وواحد ضرب أسوق قفتين مركز صار حصل تاسع مزرعة ولا ريال واد أركتين سيدا شرفت لهاد ومات إلي dadka ku nool waqooyi galbeed gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo madaxdooda markii ay sharfeen marxuum fanaan maxamed mooge ay ku magacaabeen wado kow waadna aragteen sida oo ugu xumaaday warqadii aan dirnay aniga iyo asaga dowladdii aan jawaabka waynay waa dowladdii
farmaajo xilligaas taasne meehan ugu baxay walaalayaal waxaa nasiib dara ah selim xaaji cali baxsan dhibkii ku dhacay sharaf daradii ku dhacday oo isla dowladdaas oo madax uu ka ahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa waa la arkay aaskeeda iyo wax kastoo tacsiideeda say u dhacday xataa markii dambe qaf iska sheegatay inay meel u magacaawday ilaa hadda meel ku bilaawday iyo meel ku dhamaaday aan la ogeyn waxaa ka mid a waxyaabaha maanta ku dhacay dadkii fanaaniinta soomaaliyeed oo baaldahabka ugu jiray koob waxaan idin sheegayaa qiso yar oo dhex martay qolo la dhaho been iyo almarxuum ustaad axmed naaji sacad koow qoladan markuu noolaay ustaad axmed naaji ilaah u naxariistee bishii ama labadii bil mar kastoo ama qaar oo london degan ama qaar london imaajiri markay arkaan way soo raadinayeen ustaadow adiga waxaa tahay ninka keliya qaamuuska ah ninka keliya taariikhda ah waa inaan wax kaa qornaa waa inaan guddiga sida keda waxaa dhacday almarxuum ustaad axmed naaji inuu ahaa nin aad iyo aad u dulqaad badan aniga wuxuu ii ahaa nin aabahayga oo kale waxyaabo fara badan ayaan ka bartay oona ii baraayay waxaan goobjoog ahaa casir ama galab aan ka qoraayay taariikhda heesaha uu sameeyey jaceylka iyo wadaniga hees kasto waktigii uu sameeyey iyo sababtoo u sameeyey iyo waxay ka hadlaysay ayaa soo dhacay telefoon laga soo diray magaalada muqdisho waxaana soo diray nin caan ah oo ka mid ah qorayaasha la magac baxay been oo ay xamar iyo jabuuti xaruntooda ay tahay warka wuxuu ka bilaabay asoo aan salaamin ustaad axmed ka waran haddii wasiir maareeye tigid aan kaaga soo qalqaaliyo xamar ma imaanaysaa waxaan leenahay xuski 40 guuradii afka soomaaliyeed wax yar ayuu ka aamusay wuxuu ku yidhi haddeer dad ayaa ila jooga anaa ku soo wixi doonaa markaas aniga aad iyo aad ayaan u xanaaqay waxaan ku yidhi ustaad axmed ninkan oo ku salaamin iyo inuu ku dhaho tigid ah laguu soo tuugaa see wax u jiraa markaasoo qoslay horta wuxuu yidhi maxaa loo fadhiiso su-aal ninkan marka uu hadlaayay telefoonka adna waa maqlaysi adna waa maqlaayay dad badan ayaa gadaal ka hadlaayay ka muuqaayay ma aheen oo isle haa aan dhahay kow horta ninkan mar kale ma isoo wacaayo markaasaan ku yidhi ustaad see camal ninkan oo kale wuxuu ka mid yahay ragga kufaano fanaaniinta hebelah haddii wax kaaga xiran yahay anaa kasaa hebelah anaa wacaa hebelah anaa wacaa ninkan adigana waa taqaanaa anigana waa kasaa marka ha u bixina siri waa cudur oo kusoo biiray ummadda soomaaliyeed 30 sano ninkan si fiicna u kasiyey marka dadkeena saas waaya siri waa wax cajiib taas meeha noogu baxay walaalayaalow in madaxda dowladda soomaaliyeed aysan marin maamuuskii iyo xurmadii ay lahaayeen fanaaniinta soomaaliyeed aan ka soo qaadano marxuum al-ustaad axmed naaji sacad oo ahaa ninkii ugu dambeeyey walaalayaalow su-aal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
asoo tacsiye u diraayo ma maqasheen codkiisa guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi asoo tacsiye u diraayo codkiisa ma maqasheen guddoomiyaha baarlamaanka mudane sheekh aadan madoobe asoo tacsiye diraayo ma maqasheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare asoo tacsiye diraayo codkiisa ma maqasheen wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane daa-uud awees asoo tacsiye diraayo ma maqasheen su-aal walaalayaalow wasaaradda warfaafinta oo ah hay-adda ugu sareyso ee dowladda u qaabilsan warfaafin oona leh tv-ga qaranka iyo raadiyo muqdisho aan ka soo bilaabno wasiirku xogeenka wasaaradda warfaafinta oo tacsiye diraya ma maqasheen ko agaasimaha guud tv-ga qaranka soomaaliyeed oo tacsiye diraya ma maqasheen labo agaasimaha guud raadiyo muqdisho oo tacsiye diraya ma maqasheen saddex waa ceeb maanta anagoo raadiyo aan qabno iyo tv qaran aan qabno in ustaad axmed naaji laga waayo suuraddiisa ama madaxda dowladda oo u gudbinayso tacsiyo oo sharaf leh oo qiimo leh ninkan uma baahno in ummadda soomaaliyeed loo sheego waad aragteen sow usoo halgamay ummadda soomaalida way taqaanaa walaalayaalow anagoo aan leenahay somali national t v oo leenahay raadiyo muqdisho ouna ka tirsan yahay marxuumka raggii wax kasoo aasaasay raggii wax kasoo bilaabay raadiyo muqdisho oo ah fanaanka keliya 1965 ilaa 1963 oo iskaa wax u qabso ugu shaqeynayay raadiyo muqdisho iyo tvgii soomaali oo ka mid ahay raggii wax ka furay oo ka mid ahay raggii kooxdiisa shareero heestii ugu horeysay oo madax banaan oo tvga laga soo daayo oo kooxdiisa geeyo oo intaas soo halgamay soomaali in maanta laga waayo in maanta tvya madax banaan ay soo bandhigaan tacsiyadiisa sida kow puntland t v labo universal saddex somali cable in laga soo deeyo taariikhdiisa iyo tacsiyadiisa soo ceebku ma aha ayagoo ka hadlayo qaar howlada waa beri oo ay soo deeyaan dadkaas marka arrintan waa su-aal u taal jawaabteeda ummadda soomaaliyeed kow dhowr ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano oo mar kasto maxloo maxaa u soo hadli weysay maxloo maxaa taariikhda ustaadka axmed naaji ugu soo hadli weysay ayay maalintoo dhintay ilaa hadda igu haayeen marka maanta waxaan rabaa su-aal kooban inaan soo dhex dhigo laba qeybood hal qeyb oo ah ummadda soomaaliyeed oo adduunka ku nool hal qeyboodna oo ah shanta xildhibaan looma ooyaan oo ka tirsan yahay ustaad axmed naaji sacad ilaah u naxariisto kow soomaaliye su-aal laba kelmad oo tuutar lagu soo qoray walaalayaalo in tacsiil loogu dhigo almarxuum ustaad axmed naaji ma u qalmaa miisaankiis ma leeyahay walaalayaalo ma ku filan tahay mase meel ka dhacba fariintaas waxaan jawaabteeda ka sugaa ummadda soomaaliyeed oo jeclaa almarxuum ustaad axmed naaji sacad tan labaad waxaan u diraa shanta xildhibaan oo beelaha banaadiriga
أي مثلا maanta ani la ogaanaa dowladda waa ogtiin waxay ku dhisan tahay 4.5 walaalayaalow fariinta labaad waxaan u dirayaa 5 xildhibaan beelaha banaadirga iyo dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed anigoo ku hadlaayo magaca fanaaniinta soomaaliyeed oona ah maxamed maxloo nuur fariintaas oo ah waxaan rabnaa in baarlamaanka la geeyo arrintan axmed naaji ku dhacday marxuumka in la keeno wasiirka wasaaradda warfaafinta baarlamaanka la warsado say ku dhacday iyo yaa ka dambeeyey iyo say u dhacday in dabagal lagu sameeyo waayo aniga waxaan aad iyo aad ugu helay oona igu dhiirigeliyey warkaan inaan sheego inta ka hor madaxweyneheena xasan sheekh maxamuud oo laga qaaday interview oo xataa la warsaday oo la yidhi war gabadhaada aad saas iyo saas iyo saas u samaysay iyo xaggaad geysay si fiican oon cara ku jirin ayuu ugu jawaabay wuxuu yidhi gabadheedu soo soomaali maaha ha soo xaq uma laha ha wuxuu yidhi dowladdan waxay ku dhisan tahay nin kastoo soomaali wuxuu xaq u leeyahay oo aan dagaal ahayn aan qori ahayn dowladda waa warsa karaa hadduu gardaran yahayn waa loo sheegaa hadduu laga gardaran yahayn xaqiisa waa la siinaa marka baarlamaanka waxaan ka codsanaa arrintan ustaad axmed naaji in wasiirka warfaafinta noola waco annaga iyo shacabka soomaaliyeed inaan aragno arrintan halka ay iska qaban weyse iyo ciddii ka dambeysay inuu ummadda soomaaliyeed usoo caddeeyo marka axmed naaji horyaan ugu soo sabarnay dalees dhibkii loo geystay iyo baxsan dowladdii farmaajo hadda dowladdii xasan sheekhaan joognaa waxaan ka codsanayaa xildhibaanada inta muwaadiniinta ah inay garab nagu siiyaan arrintan in wasiirka noola waco oo la keeno baarlamaanka fariin gaarna waxaa u diraa brofesor dalxa ustaadka waa la socdaa aad iyo aad inaad saaxib u eedeen waxyaabo badanne aada isla soo barteen marka arrintan waxaan kaa rabaa gubaabadiisa iyo hirgelintiisa warkane meehaan ugu baxay